rayn inaan maanta dhex fadhiyo maantay oo ah maalin khamiisa bishuna ay tahay 31 haddaan khaldanayn kii bishii saddexaad 2016 shirkii nabadeynta ahaa iyo gogoshii muddada taallay magaalada Dharjaalle ee labada beelood ee walaalaha ah ay isugu yimaadeen aad baan ugu faraxsanahay waxaan kaloo ka mahad celinayaa shirka in laygu casumo oo laygu marti qaado iyadana oo ka mahad celinayaa taariikhda waxa laga dhaxlaa oo laga faa'iidaa waxay tahay wixii soo maray oo wanaag ahna in lagu daydo oo la ilaaliyo oo dib loo raadiyo wixii khaldan oo taariikhda soo marayna in laga taxadaro oo laga digtoonaado waxaynu wada ognahay dhalashada ka sokow labada reer waa laba reer oo wada dhashay oo hal biyo ku wada abtirsanaya dhalashada ka sokow haddana waxaa jiray xiriir badan oo hadday tahay deegaanka Soomaalidu atay hore u tiri oo de abka dhow marba waxaa jira nin walaalkaayo kula dhashay laakiin aydan wada dhaqmin oo aad kala fogtihiin waxa kaaga soo kamaraya kan kula dhaqmay oo jiiraanka ah oo daris wadaaga aatiin oo ooda iyo wadada iyo ceelka iyo colka iyo kulli aad wadaagtaan diinta iyo shariicaduna waa tilmaantay waxa weeye arrintaas waxaa la yaqaanay taariikh wanaagsan oo qurux badan oo bilowgeedii ilaa iyo dhammaadkeedii dhammaanteed ku qorayd baaldahaba ku qoray taariikhda kaga qorayd labada reer dhalashada marka laga yimaado waxay lahaayeen xulufaysi waxay lahaayeen wax wada qabsi cadowga hal meel bay uga soo wada jeedeen waxay lahaayeen isgarabsi dhinac walba marka laga fiiriyo xitaa dhinaca siyaasadeed raggu waa wada xogagaal rag badan oo taariikhda iga badiya waa meesha fadhiya arrintaas waxaa la rabaa wixii hadeerka soo gaaray oo jirana in la adkeeyo taariikhda wanaagsan wixii ayaamihii dayaca ahaa iyo ina soo marayna in la tirtiro oo la soo celiyo xulufaysigii iyo iskaashigii iyo wax wada doonadkii iyo deegaan wada difaacii iyo cadowga meel looga soo wada jeeday in la ilaaliyo oo dib loo saxo waxaadna ogaataan waa mas'uuliyad maanta inteena halkaa fadhida ina wada saaran taariikhda wanaagsan oo aynu ama soo gaarnay ama sheekadeeda soo gaarnay haddaynu soo celin weyno waa mas'uuliyad berrita layna weydiinayo maantay dadka hadeer jooga taladooda waxbaynu ku leenahay haddaynu dhinaca san oo wanaagsan u talin weyno oo dhinaca san u kaxayn weynana berrito ilaahay hortiisana waa layna weydiin doonaa taariikhduna wayna weydiinaysaa waxa aynu dhaxal siinayno xumaha iyo waxa aan fiicnayna waxay noqonayaan dhasheena anigu ma joogin aad baan uga xumahay shirkii dambe oo uu madaxweyne ku-xigeenku Camay uu joogay oo la isugu yimi inay meegaaga ahayd baan u malaynayaa gaalmaal halkaa la isugu yimi waxaan daawaday video clipkii aad iyo aad baan waxaan u qiirooday laba gabdhood oo halkaa buraanbur aad u qiimo badan ka akhriyay weliba gabadhii markii hore akhrisay buraanburkii dheeraa oo ka sheekaynaysay taariikhda la soo maray iyo gabdhihii inay dhalmadaayeen oo raggii qarka galeen oo dhibaatada iyo taariikhda dheer ka sheekaysay aad baan uga qiirooday waxaad moodaa xilliga aynu joogno sideedaba waa xilli fitan oo xumuhu mar walba ka qaalib noqonayo wanaagga xilligaa dhibka badan baynu joognaa wixii samaa oo wanaagsanaana waxun loo arko rasuulkuna calayhi salaam uu sheegay inuu iman doono waxyaabaha akhir zamaanka iman doona ay ka mid tahay wixii xumaana dadku waxsan u arkaan baynu joognaa maanta dadka wanaagga ka talinaya waxaa loo arkaa sharwadayaal
waxaa loo arkaa niman dibdhac wada, waxaa loo arkaa niman fulaya ah, waxaa loo arkaa niman raba inay dadka ay ka dhasheen inay la haraan raba. ninka sharwadaha ah oo ku talinaya dadka in la laayo, ceelasha in la gubo, guryaha in la gubo, maatada la qaxiyo, ninkaana waxaa loo arkaa nin geesi ah oo haliyey ah oo magac iyo sumcad beesha usoo jeedinaya. waxaa laynaga rabaa ninka saa wax u biinaya inaynu iska qaban karno. waxa ugu sahlan oo waxaa weeye qofka bini'aadamka ah suu rasuulku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam, xumaha meesha ugu fogu ka istaagi karo inuu qalbiga ka naco. inta ka horeysa istaabiyadii ay lahayd oo dhan markii aynu gacanta ku qaban karno inaynu ku qabanna, markaynu carabka ku sheegi karno, marka ugu dambeysana qalbiga laga naco. rag badan oo mas-uuliyiina fadhiya, xildhibaanaha fadhiya. hawsha maantay intaasi ay xallin weyday waxay ila tahay cid kaloo laga sugayaa ma jirto. wax maanta laysku hayo oo dhibaato ah ma jiraan. isfaham la-aan baa jirta. isfaham la-aantu waxay u baahan tahay si degan oo niyad sami leh in lagu xalliyo, oo daacadnimo iyo qalbi furnaan iyo kalsooni ay ku dheehan tahay. shirarka maalmihii hore oo la qabanayay oo loo ballamayay in la qabto oo maqashoonayn, markiina lagu yiri boosaasaa loo wareejinayaa shirka, annagu ma jeclaysan xaqiiqatan, mana aanan soo dhoweyn. waxaa la yidhi weli dadku isma dhexgelin, amni xumaa iman karta, keeraa iman kara. waxaasoo dhan waxaan u arkaynay inay ahayd waxyaabaha wax kala fogeynaya. waxaa la rabaa sida haddeer aa ugu dhiirateen in halka la wada fadhiyo, marar kalena in la tago deegaanada kale la tago oo beesha Muuse Saleemaan loo tago, iyadu gogasha dhigto oo raggu halkaa habeena jiifaan, oo hoos loo sheekaysto oo kor loo sheekaysto oo xaafaduhu isdhex galaan. waxaa weeye xilligaynu maantay joogno haddaynaan iskaashan oo cududeenna aynaan midayn oo aynaan cadowga hal iskoob ku wada fiirin, dhammaanteen waxaynu noqonaynaa niman u dayacan oo u nugul cadowga isaga ah. waa la socotaan gobolkanaynu joogno iyo deegaankanaynu joogno, mar walba oo aanu isu nimaano waxaynu tirsanaa dayac fara badan. waxaynu tirsanaa inaynu gobolladii ka harray, waxaynu tirsanaa deegaanadii horumar inaynu ka harray, waxaynu tirsanaa qabaa'ilka degana waxay tirsadaan qabaa'ilka horumarka siyaasadeed ay gaareen iyagu inay ka hareen, horumarka deegaan ay gaareen ay ka hareen, horumarka isdhexgal ay gaareen inay ka hareen. waxaasoo dhan iskama iman cilladaha keenay. cilladaha ilaa la suuliyana tegi mayaan. cilladaha keenay waxaa ka mid ah tanaa haddeer u fadhidaan inaad xalisaan, qayb bay ka ahayd. niman wada dhashay oo guri wada degan oo ceelkii iyo wadadii iyo degsiimadii iyo intaba wadaaga, oo haddana isu arkay inay cadow isu yihiin. haddii deegaankaasi ma hormari karo, dadkaasina ma hormari karaan, laysmana dhexgeli karo, waa dhibaato. laakiin marka ay taasi baxdo oo ay soo noqoto isdhexmarkii, oo ay soo noqoto waxwada cunkii, oo ay soo noqoto deegaan wadaagii, waxaa imanaysa marka in loo tashado deegaankan aynu wadaagno, aynu hormarino, aynu ceelal qodno, aynu dhuxul shallagoynaya ka joojino, aynu wadooyin samaysano, aynu maamulka iyo nidaamka jira inagoo isku duuban u tagno oo niraahno maxaa naga damacdeen oo deegaanka iyaga ka damacdeen. markaasay soo baxaysaa tashiga iyo wanaagga iyo waxwada qabsigu markaasuu imanaya. taariikho badan oo ayaamihii u dambeeyey ina soo marayay waxay ina dhaxal siiyeen waxa aynu maanta ku aragno deegaanka aynu joogno oo horumar la-aan iyo dib u dhac ah. waxaad wada ogtihiin oo qof walbo hadda halkaa fadhiya uu maqashoon yahay nimankii halkaa soo maray doonyaha faraha badan watay inay u socdeen deegaanadeenna, inay u socdeen 6 bilood ka hor ama 5 bilood ka hor qayb iyaga ka mida inay yimaadeen, inaysan dowladdu ka hadlin, inaysan qabaa'ilku ka hadlin, inaysan cidna ka hadlin, dowlad dhaxan ka hadlin,
mid gobol baan ka hadlin, mid federaalaan ka hadlin, cid kalaan ka hadlin. nimankii meesha waa isa siiyeen, ceelashii bay barteen, degsiimadii bay barteen, meelaha dhufayskalay barteen, meelaha biyahalay barteen, meelaha looga iman karay barteen, dadkii bay dhex galeen. kadibna qayladhaantoodii waa tii 4 doonyoodoo buuxa la soo diray. 3 doonyoodna waa wada socdeen, doonna gaar bay ka ahayd. marka badda joogaa dadka ilaahay ku badbaadiyey. markabkaasaa wuxuu dareemay maraakiibta waxaa saaran qalab detected ah oo lagu ogaan karo masaafada waxaa u soo jira waxa noolaha saaran, oo wuxuu tilmaamayaa signalka wadnaha uu bixiyo. wuxuu ogaan karaa markabkaasi doonta halkaa maraysa inta noole oo saaran 10 wadne 20 wadne, qof 2 wadne lama jiro buu ogaan karaa. waxay ogaadeen doonyaha kan tiro fara badan oo kalluumaysato ka badan oo dadkii caadiga ahaa ka badan inay saaran tahay. inay hubiyaan bay usoo dhaqaaqeen. nimankana waa ka war heleen, raggoodii bay la tashadeen. amar waxaa lagu siiyey 3 doonyoodoo ku beegnaa soona Garaacad iyo Jariiban inay halkaa xeebta kaga degaan. doontii soo dhaaftay oo garmaal ku beegnaydna inay halkaa kaga tagto. hadday dhici lahayd inay 4 doonyood iyo ragga saaran ay soo gudbaan oo degsiimadeenna ay yimaadaan, oo raggii ka horreeyey oo muddada diyaarinayay sahayda iyo saadka diyaarinayay ay ishelaan, ka warrama miisaanku intee la ekaan lahaa. dhibaatadaas dhacda waxay noqon lahayd Toorobooro iyo Afghanistan sidii loola diriray in loola diriro la yiraahdo 1,000 nin oo argagixiso ah oo hubaysan baa waxay galeen deegaanada buuraha bari ku yaala. kadibna la yiraahdo dadka degsiimada degan ha laga guuro, waa la duqeynayaa, deegaankaasi saa ku baabao. awal Bugaari waa iyo deegaan go'an oo aan cidi tegin ahaa, rasmi inuu u go'o. cid allaale ciddii damacday inay soo aadana lagu calaamadiyo la yiraahdo waxay la leeyihiin gacan saar. gaadiidka soo leexanaya laamiga in dhalinyarada laga rogo, in baabuurta la xirxiro, in raashinka loo diido baa iman lahayd. ilaahay subxaanahu wa tacaala dadkan waa dad iska masaakiina, iska xalaal quuta ah oo xaaraantu kolley waagi hore ku yarayd. dhagartii ay wadeen iyagu ku celiyey, waa tii la jabiyey, halkaa dhibaatadu ay ka raacday. laakiin mid waa inaynu wada ognahay, nimankani waa niman nidaamkoodu adag yahay, diyaargarowgoodu adag yahay, argoosigoodu dhib badan yahay. niman sahal ku maqan hadeer maaha, qorshay ku maqan yihiin, ku talagal bay ku maqan yihiin. allah u naxariistee, waana maqlayseen saakay ninkii wasaaradda maaliyadda gobolka Mudug haystay, Gaada Yare iyo raggiisii, saafkiisii iyo raggiisiiba inay saakay laayeen. allah u naxariisto intii halkaa ku dhimatay, intii dhaawactayna allah u boogadhayo. qorshahaas iyo kuwo badan oo kale baa inagu soo maqan, oo Puntland ku soo maqan, oo degsiimooyinkeena ku soo maqan, oo ay ku talagalayaan inay meel walba oo dadku joogaan inay gaarsiiyaan. dadkii ka tashan lahaa oo qorshaha ka yeelan lahaa waa dada kan kala irdhoobay, oo colaada la dhex dhigay, oo fitanka la dhex dhigay, oo qaybtood laga yaabo inay qaybta kale ku faraxdo jabkooda oo yiraahdaan daa lug hartay bay noqonayaan. laakiin haddii aan la midoobin oo la iska kaashan oo cadowga dhow iyo ka shishe aan mid loo wada noqon, wallaahi ninba maalin bay ugu imanaysaa gurigiisa, ninba maalin bay degsiimadiisa imanaysaa, ilaa marka dambe bannaan la isugu yimaado. waxaan aad iyo aad aan u taageerayaa anoo ah Cabdismaan Maxamed Gallan wanaagga aa wadaan iyo kalsoonida idinka muuqata iyo sida aadanihiinnii gaarka ahaa intaad mid maamulka ka tirsan iyo mid nabadoon iyo caaqil guud ahaaba iyo mid ganacsada ahaaba dantiisii gaarka ah intuu soo xiray tan guud u soo bambaxay. waa ka mahad celinaynaa, waana idinku taageersannahay. ilaahay idankiina waxaan rajaynaynaa inay dhammaystirmato. wixii annaga nagaga tooboonna diyaar baanu u nahay. talooyinkiina waa qaadanaynaa, waa soo dhawaynaynaa. fikirkiina saliimka waa soo dhawaynaynaa. waxaa loo baahan yahay waxaani inay ka yimaadaan niyad saafi ah, qalbi saafiya inay ka yimaadaan, qalbi saafi ahna ay ku dhacayaan. haddii
waajib aynu iska ridayno keliya aynu u aragno shirka inaynu tagno shirkan shirar badan baa ka horreeyey qaybtu intoodii badnaa fashil bay ku dambeeyeen waa wada ogtihiin dadaal intaa ka badani ku baxay dhaqaale intaa ka badani ku baxay isxilqaan intaa ka badani ku baxay marka waxaa la oran karaa sababta ugu badan waxay ahayd niyaddii la rabay maahay baan anigu oran karaa hadday niyaddu saafi tahay oo ikhlaas uu jiro tira intaa ka yar baa waxay dhexdhexaadisay isu soo jeedaa qoomam dhan oo muddo iyo qarniyo dhibaato ka dhaxaysay hana u fadhinina hana sugunina horumar iyo wanaag haddaydan idinku midoobin oo gacmihiina ku doonan oo xuquuqda idinka maqan aydan wada raadsan ha u sugina anigu alxamdulillah waxaan shaqaynayay hadeer labadii maamul oo u dambeeyay maamulkan Cabdiweli uu madaxda ka yahay iyo kii Cabdiraxmaan Faroole mid walba labada teeram in fiican baan la soo shaqeeyay aan heli karay xogta dhabta ah ee Puntland ka jirta aan heli karay sababaha keenay gobolkan iyo qabaa'ilka degan horumar la'aanta iyo wax wada qabsi la'aanta asbaabaha keenay in badan oo kamid ah aan ku ogaaday waxaa laf dhabar u ah oo halbowle u ah waxay ahayd midnimo la'aanta iyo wada tashi la'aanta iyo kalsooni darrada taalay qabaa'ilka gobolka degan dhexdooda taasaa waxay ahayd waxa u ah laf dhabarta in gobolkani uu noqon waayo miisaanka uu leeyahay inuu yeelan waayo maqaamka uu leeyahay taasaa laf dhabar u ahayd waa ka wada warhaysaano adduunka maantay waxaa wax lagu qaybsadaa oo lagu xisaabtamaa waxa ay tahay marka مثلا وسيستمku system federalism markuu yahay waxaa lagu xisaabtamaa gobolka xukumaya gobolada kale inay jirto sabab uu ku xukumayo inay jirto wuxuu dheer yahay gobolka kale anigu iskama ogolaan karo in aniga gobolkayga uu gobolkaagu xukumo inuu gobolkayga gobolkaaga caasimad u noqdo inuu gobolkaaga madaxweynuhu ka yimaado inuu gobolkaaga ra'iisul wasaaruhu ka yimaado aniguna aan weligay ahaado gobol taabico meel taagan waa inay jirtaa sabab ay igu qancin karto waa inay jirtaa laba arrimood baa wax lagu qaybiyaa maanta mid waxa weeye in la yiraahdo gobolada tan federaalka samaystay ileen Soomaaliya markay federalism samaysatay Puntland oo maamul goboleeda waa federaal iyada dhexdeeda waa inay federaal noqotaa federaalku wuxuu leeyahay jaranjarooyin kala hooseeya dowlad dhexe iyo maamul goboleed labaduba waa inay federaalkii ku dhaqmaan marka federaalkaasi dhaqan galo ba kalsoonidu imanaysa waxaa imanaysa ixtiraamkii waxaa imanaya inaan anigu kuu ogolaado inaa i hogaamiso waxaa imanaya inaan ogolaado gobolkaaga mashruuc horumarin ah inta kayga laga leexin kaaga la geeyay inaan ogolaado baa imanaysa laakiin marka aysan jirin waxaan anigu u arkayaa awood inaa ii sheeganayso inaa xaqaan leeyahay boobayso inaad wax badan gacan bidxaynayso waxaa marka aan la fiirsanayaa jaanis iyo maalin dulmiga aniga ii muuqda aan iska leexin karo maalintay doonta ahaato dowladda tan aynu dariska nahay imaaraadka rag halka fadhiya niman tagin uusan ku jirin oo aragteen waa 7 imaaradood waxay wax ku qaybsadeen oo isku xukumeen say u kala dhaqaalaha badnaayeen Abu Dhabi imaaradda ugu dhaqaalaha badan iyada waxa loo daayay xaakimkii 7daas gobol xukumi lahaa inuu iyada noqdo weligeed aan laga bedelin inta ay dhaqaalaha iyadu number 1 ka tahay caasimadina iyada la siiyay Dubai oo dhaqaalaha labaad ee wadanka soo saarto gaas badan lehna waxaa laga dhigay caasimadii labaad iyo tii ganacsiga iyo ra'iisul wasaarihii wadanka inuu iyada ka yimaado qolada marka Khorifakan iyo Fujayra iyo Umulquwayn iyo Raasakhaymay waa qanacsan yihiin waxay ogyihiin waxay soo saaraan gobolkoodu waa gobol fakhriya
dhaqaale badan ma laha waa la kabaa marka waxay ku qanacsan yihiin caasimadii gobolka dhaqaalaha la in la geeyo madaxweynihii inuu iyaga ka yimaado hantidii badnayd maadaama iyagu soo saarayaan wuxuuda gaarka ah oo la soo baxaanna qayb baa loo reebaa qaybna dowladda dhaxal lagu daraa markaasaa la kabaa system waa systemkaas systemna waa system dimuqraasiya oo dadku siman yihiin oo cadaaladi jirto oo qofku marka uu gaaro da'dii loogu talagalay inuu qofku codayn karo markuu gaaro inuu qofku codeeyo marba waxaa dhici kartaa anoo u dhashay dhar jaalle magaaladan aynu imika joogno anoo u dhashay marka magaalada loo dooranayo qofkii gudoomiyaha ka noqon lahaa hadduu isu soo sharaxo nin aniga walaalkay ah ama inadeerkay laxmiya ah iyo midaanu kala tirsanno wax fara badan aanu kala tirsanno inaan anigu codka siiyo kaa wax badan iga fog sababtuna ay noqoto inaan u arko kaasi inuu magaalada wax badan ku biirin karo inuu kan aniga ila dhashay magaalada uga turid badan yahay inuu uga aqoon badan yahay inuu wax badan kusoo biirin karo marka taas waa taa dimuqraasigo la gaaray oo qof walba codkiisa bixinayo qofkii markaa codkaa mutaysta baa dadkaa hogaaminaya xisbigii codkaa mutaysta dadkaa hogaaminaya wax walbana wax transparency iyo accountability leh wax lunsanaya male ninka xisbiga haysta xoolaha walaalkii u rari mayo tuuladu ka soo jeeday intuu muraayad iyo dhalo ka dhigo tii laga soo doortay cidla kaga tegi mayo hantidii la keenay kuma tagrifali karo isagoo bartanka maraya baa wiil yar oo 18 jir oo codbixiye ah wuxuu leeyahay waxaan rabaa in la qanciyo oo la ituso gobolkayga iyo magaalada hantidii ka soo baxday meesha la geeyay iyo sida loo maamulay xaq uu leeyahay wala soo fariisanaya waxa loo sharaxaya hantidii gobolkiisa ka soo baxday intay ahayd meeshay ku baxday waxa ka yaala waxa lagu qabtay wixii dhan markaas qofkii qancayalkaas ka baxaya inagu labada midna ma haysano waxaynu haysanaa nidaam xeer jajab ah oo farsamo diihaal ah oo tolnimo iyo walaalnimo iyo isu tanaasul iyo aynu wax ku wada qabsanay baynu haysanaa wax badan oo wanaagana lagu gaaray wax badanna uu ka dhiman yahay oo la gaari lahaa hadday cadaaladi jiri lahayd hadday sinaani jiri lahayd hadday dhexdhexaadnimo jiri lahayd qofku inta uusan barnaamijka dhex gelin waxaa laga yaabaa wax badan baa ka dahsoon oo ka qarsoon anigu Puntland 2002 baan imi 2001 bishii 7 baan Puntland u soo guuray intii badnayd oo ka dambeysayna waa joogay inta aanan systemyadii Puntland ka jiray aanan ka mid noqon oo maamulada ku biirin xogta aan haystay iyo markaan maamulka galay xogta aan helay waxay ahayd wax kala duwan wax aad u kala fog that's why baan marka mar walba waxaan ugu celceliyaa qofku ilaa uu waxa kan dhex galo oo xogta helo waxa laga yaabaa wax badan inaadan ogaan karin Puntland 98 baa la dhisay wanaag badan baa laga helay waxaa laga helay horumar badan waxaa laga helay magac waxaa laga helay sumcad waxaa laga helay inay sabab u noqoto baadigoobkii Soomaali weyn inay sabab u noqoto in Soomaali dib loo ururiyo inay sabab u noqoto hooyo u noqoto dawladda tan maanta jirta ee federaalka ah waxaasoo dhan waa ka wada dheregsanahay laakiin waxa su'aasha mar walba soo noqonaysa oo aad moodo inaan la ogolayn in laga hadlo waxay tahay Puntland waa la dhisay 98kii wax kastana marka la yagleelo oo la dhiso markuu muddo jiro wuxuu u baahan yahay dib u eegis wuxuu u baahan yahay la xisaabtan hadday wax isbedeleen in dib loogu noqdo la saxo hadday wax soo kordheen in lagu biiriyo oo dib la isaga yimaado 98kii Puntland haddii la dhisay kadib dib la isaga ma iman khilaafiya dhacdhacay maamullo markaa jiray oo qaybtood xoog looga qabsaday qaybo kala jabhada noqdeen oo haddana xoog ku qabsadeen waxyaabo noocaas oo ina soo maray mooyee dib u eegis ama review in Puntland lagu sameeyo ma dhicin la isugumana iman maalintii Puntland la dhisay waa wada ogeydeen
waxay ka koobnayd gobolkaasoo buuxa gobolka bari oo 6 degmo ay dhammaystiran yihiin iyo nugaalo 4 degmo dhammaystiran yihiin mudug jariiban iyo goldogob baa ka joogay guriga la yiraahdo sanaagna waxaa maqnayd 2 degmo waxaa maqnayd meesha la yiraahdo ceelafweyn iyo ceerigaabaa maqnayd soolna waxaa maqnayd caynaba inta kale puntland waa dhammayd haddii la isugu yimi buuhoodloo ka joogtay keliga togdheer ka joogtayna degmay ahayd waagaa marka qaabkii wax loo dhistay waxay ahayd waxa la yiraahdo cafoowiga oo ah in aan la xisaabtamin la isa saamaxo marun aynu wax yeegleelano wax fiican bay ahayd raggii markaa ka taliyayna intoodii badnayd waa dhimatay wax fiican bay ka taliyeen oo ducaynayna laakiin waxay ahayd markii wax istaageen oo wax soo baxeen oo dhaqaale la yeeshay oo wax soo baxeen oo nidaam soo baxay inuu xisaabtan yimaado in wax la isweydiiyo in horumar badan si loo sameeyo in cadaaladii iyo sinaantii iyo sidii wax loo kala lahaa iyo sida loo kala yeelan lahaa nidaamkeeda in dib loogu noqdo ma dhicin arrintaa marka nidaambu wuxuu u gudbiyey wixii uu ka dhaxlay gobolladii waagaa wax wada dhistay oo ogtihiin oo maantay wax rasmi u jooga labada gobol baa ka jira nugaal iyo bari ninkii gobol kaloo jooga og oo sheegayana waa isagaynu ka maqli doonaa sanaag waa ogtihiin gobol ahaan magac ahaan bay u joogtaa laakiin waxaa weeye dhaqaalena kama yimaado awoodo kalena kama yimaadaan maamullo kalena jooga soolna 3-4 degmo ka harsanayd iyana socotay taleex baa ugu dambeysay iyo meesha la yiraahdo boocame togdheerna buuhoodla ka joogto iyadana waa socotay ogti mudug oo markaa 2 degmo iyo gaalkacyo haafa ay ka joogtayna waa ogtihiin oo sharciyad adduunka sharciyad wax lagu maamulaa sharciyad dhammaystiran oo dowladdii federaalka iyo tii puntland iyo igad iyo dowladaha dariska iyo amisom iyo UN-kii intuba ay saxiixeen baa waxaa laga dhigay maamul goboleed jira oo la yiraahdo galmudug waxa sharciga ah waxa weeye si kasta qalooca ugu jiro sharciyadiisii buu tagayaa magaca inagu aynu sheeganayno leenahay gobolka mudug sharci ahaan xaq uma lihin midda kale markaan anigu rabo Soomaali inaan isla doono markaan anigu rabo inaan midnimadii Soomaaliyeed soo celiyo haddaan diido waxaan geographically bay isu raacin mudug gobolka la oran jiray qabaa'il kala duwan baa degmooyinkiisa deganaa hal gobol bay isku ahaayeen dowladdii dhexe siyaad barre haddeerna halkoodii gobol bay isku ahaanayeen lama kala goyn karo haddaan marka anigu diido oo aan iraahdo maya waxa weeye maamulka galmudug la yiraahdo samayn mayo oo Soomaali wax isku darsan mayso isla markaana aan iraahdo xamar baan tagayaa waxaan ka shaqeynayaa dowladdii federaalka iyo doorashadeeda iyo madaxweynaan ka raadsanaya ra'iisul wasaaraan ka raadsanay Soomaali inay isu timaadaan rabaa wax is qaadanaya ma waa hadal isburinaya anigu waa dhici kartaa bini aadan baa ahay fikrad ahaan waa khaldami karaa aragtidaydu aragti khaldan waa noqon kartaa laakiin aniga waxa ii muuqatay siyaasad ahaan xitaa maamulka galmudug laga dhisay haddii laynooga adkaaday in maamulkii la dhiso oo la dhisay inaynu wax ku yeelano oo nimanka la yiraahdo mareexaan waxay ku leeyihiin tira fiican iyo degmooyin fiican inta tan Puntland soo jirtay jariiban iyo goldogob iyo gaalkacyo haaf ahaydna waa miisaan weyn waa kala bar gobolkii marka ay xagga raacaan oo maamulka noqdaan maamulkaas wuxuu ka koobnaa galgaduud iyo mudug galgaduudna 2 degmaan ku leenahay marka qabaa'il loo wada hadlo mudugna 2 bar baan ku leenahay 4 degmo iyo bar waana 9 degmo waa kala bar waxaynu u tartami karnaa madaxweynaha caasimadaynu qaadan karnaayo gaalkacyo caasimadda laga dhigi karaa sidii Berlin oo kale darbiga inta la jabiyo ba caasimad ballaaran waana meel ku haboon oo dhexdhexaada oo Soomaali oo dhan xudun u ah caasimad waxay noqon lahayd caasimadaha xamar maaha inta kale oo dhan ka sarreysa ka baaxad weyn kana istiraatiijisan caasimadan qaadan karaa
madaxweynahan u loolami karaa tirada ugu badan oo xildhibaanadan qaadan karaa tan golaha wasiiradan qaadan karaa waxaasoo dhan waxay ahayd wax siyaasad xumo ku dhacay taladeedana waxna lagama siin marka aan leeyahay waxna lagama siin waxaan ka hadlayaa Puntland marka ay tahay waa inay taladu ay tahay wax halkaa yaala oo ninka bari ka soo jeeda iyo ninka nugaal ka soo jeeda iyo ninka gobol kale oo Puntland ka tirsan ka soo jeeda talada waa in la wadaagaa taladii galmudug lagu diiday oo lagu dagaalka lagu galay oo shidada ku timi oo dhibaatada ku dhacday talada inaga wax laynagama siin gobolka bari wax lagama siin rag baa talada maroorsaday oo qaatay ilaa hadeerna ay halkaa u suran tahay talada colaad baa la galay dagaal baa la galay dhaqaalihii naga dhaxeeyay Puntland oo ninka bari ku dhashay iyo ninka nugaal ku dhashayba ay wadaageen oo dhaqaalaha xooggiisa uu gobolkan ka yimi baa waxaa lagu burburiyay gaalkacyo saanadii halkaa la geeyay iyo budgetkii ku baxay wuxuu noo qaban karay wax fara badan oo horumar ceelal fara badan buu qodi karay wadooyin fara badan buu samayn karay tababaro badan buu shaqaalaheena iyo askarteena iyo dadkeena u siin karay wax badan oo wanaag u samayn karay tala xumadii waxa lagu darsaday in iyadana lagu takrifalo hantidii la wadaagay oo meel halka la aado wixii la doono laga sameeyo khasaaradii ka timi ana la igula soo noqday oo aan talada wax la iga siin inaan marka ka hadlo iraahdo war talada ama isku filow oo hada taladii aniga wax iga diiday waxaaga dhaqaalihiisa iyo difaaciisa iyo qorshihiisa isku filow ama talada aan wax ku yeesho hadaa rabto inaan wax ka difaaco dhaqaalaha aan wax ka bixiyo qorshaheeda aan wax ku yeesho waxaad moodaa arrimaha ismaandhaafka keeni kara oo khilaafka keeni kara oo burburka keeni kara kamid yihiin dadku maantay uma baahna wax dib u celiya waxay u baahan yihiin wax hore u kaxeeyo meesha la joogo in laga kaxeeyo anigu nin weyn baan ahay waa dareemi karaa maantay Puntland ma qaadi karto colaad nin iyo labo ay wadaan iska dhaaf wax ka badan ma qaadi karto maantay Puntland cadow shishe iyo mid la soo dhaxgeliyay iyo mid geesaha ka fadhiya intaba waa leenahay laakiin anigu waxaan rabaa si aan cadowga wax uga difaaco si aan Puntland tan magac ahaan hadeer u jirta magac ahaan bay u jirtaa inay noqoto real Puntland la taaban karo inay noqotaan anigu rabaa waa in la ila fahmi karo waa inaan aniga la oran marba hadaan ka hadlo arrimaha waa inaan la oran oo ninkaasi waa burburiye wuxuu rabaa Puntland inuu kala furfuro wuxuu rabaa Puntland inuu kala geeyo wuxuu rabaa inuu kala kaxeeyo dadkii wada dhashay waa inaan la oran waa in aniga la iqancin waa in hadaan khaldanahayna marka la iqanciyo ay ka soo dhaxbaxdo inaan khaldanahay hadaan saxanahayna in apologize la isiyo la yiraahdo waa naga saxantahay taladina adaa hela waa in la oran karo aan waxaan aaminsanahay qof walba halka fadhiyo ragga kamida Puntland taladeeda in wax ku leeyahay sixitaankeeda in wax ku leeyahay difaaceeda in wax ku leeyahay ilmaade reeyalo hadaan khaldanahay idinka ay qabanaya Puntland haday goboladii wada dhistay ay kala tageen sababtay doonana ku kala tagaan ma waanaan xaq u lahayn in la isu yimaado oo la yiraahdo war ama aynu goboladii isu soo celino oo awoodihii dib isugu ururino ama inta hartay nidaam ka dhaxeeya oo ay wadaagaan oo kuwa ka tagay oo ka baxay aysan la wadaagin aynu samaysano xaq ma u leenahay Soomaalihin hadaan khaldanahay waa khaldanahay in la diido marka la ignore gareeyo la yiraahdo lama ba samayn karo la isuma iman karo taladaana lama soo qaadi karo 5 sano noo dhiibto 5 markay dhamaato 5 kale noo dhiibto maalin walba xaafad iyo reer ay si gaar isu abaabulaan oo yiraahdaan taraha iyagii baa soo socda hadaad ka hadashana la yiraahdo taraha iyagii baa carqaladaynaysa ama teeramka iyaga carqaladaynaysa arinta anigu waxaan u arkaa arin hadaynaan maantay ka hadlin oo aynaan maantay ka talin meel fog in laga dooni doono anigu su'aalo badan baa la weydiiyay oo ragga qaybtood maskaxdooda ku soo noqonaysa waxa kamid ah galan barasaab 5 sano wax ku dhow buu ahaa waxaan u akhrinayo oo ka hadlayo iyo balada tan oo hadeer arko way hore ugu arki waayay su'aalaha waa la weydiiyay meediyaha la iga weydiiyay
cabdi weli laftigiisa ay weydiiyey habeenkii uu maalintuu ka soo noqday Kismaayo waatuu habeennimadii soo wacay isaga iyo madaxweyne ku-xigeenka waataan ugu tagay Boosaaso saan idin la hadlayo oo furan baan ula hadlay wuxuu igu yiri Gallanow waxaana ka hadlayso markaa barasaabka ahayd maxaa uga hadli weyday dawladda Cabdiraxmaan Faroole kama hadli jirin aniga xukuumadayda intii adigu barasaabka ahayd kama hadli jirin markii xilka laga qaaday oo aad xilka ka degtay way uga hadlaysaa waxaan iri waa ka jawaabayaa adigu mid iiga jawaab xilliga aan ka hadlay ana sababayn doono cilad bixin doona laakiin waxa aan ka hadlayo wax jira oo dhaba ma yihiin misamaha taa horta iiga jawaab waxba ka jira buu yiri waxa ka hadlayso waxba ka jira haddaba waxaan ku iri ana sababaynayo anigu maalintii aan ahaa gudoomiyaha gobolka oo teeramkaaga hadeer ahaan ahaa waatii tusaale yar baan kuu soo qaadanayaaye taliyaha qaybta gobolka bari ninka ka ah khalad buu sameeyey nin dhalinyaro ah oo ganacsada ah oo reer bari ah uu si khaldan wuxuu u isticmaalay baawarkiisii iyo awoodiisii power abuse buu sameeyey hantidiisii buu ninkii ka boobay hanti kalena waa weydiistay markuu ka waayana xabsigu dhigay arrinta guddiga nabadgelyada 7 xubnood baanu ahayn isagaan ka reebay 6 iyadii kala jeelka ugu tagnay ninkii oo xiran waxaanu ka soo qornay statement dhameystiran hay-adihii dawladdu amniga oo dhan baa ila socday reportkii oo dhameystiran oo aan soo daabacay lacagaha uu ninka ka boobay oo ka dhacay xawaaladihii bixiyay shirkadda sahalka bixisay markhaatiyaashii wixii oo dhameystiran baan kuugu keenay Garowe waxaan soo raacay warqad barbawsal ah nin la yiraahdo aamusane ninkii yaqaana garanaya oo nin korneyl oo barbaraati ah oo aad u qiimo badan aan taliyaha qaybta gobolka bari u soo barbawsal gareeyay waxaan ku iri hadaan been sheegayo madaxweyne ku-xigeenka ku dhinac fadhiya markhaati ka ahaa wixii aad igula hadashay iyo wixiina dhex marayna waa ogtahay waxaanan aaminsanahay sababkii dikreetadayda soo dadajiyay in xilka igaga qaato inay arrinta ahayd marka waxaan ku iri wax ka badan oo aan ka hadli karay ma jirto inta yarta oo aan xaq u lahaa oo sharcigu ii ogol yahay oo awoodahayga ka mid ahayd haddaad xilka igaga qaaday maxaan kaloo ka hadli karaa waa inaan marka la sugo maraanan xil hayn oo aan xor ahay oo uusan ninna igu tagrifali karin banaanka intaan istaago si xorriyad leh aan u hadli karo maantay noqotay haddaba waxaan ku iri waxaa waddanka ka jiro dulmi ah oo jira nin dhalinyaro ah oo aqoon-yahana baa tahay naftaadana u tur ummadaana u tur oo maantay raggii kaa horreeyay waxay khaldeenna adigu sax waxa adigu khaladayna maantay sax magac iyo waxay kuu noqonaysaa wax wanaagsan hambaa kugu jira Soomaaliyada guud inaad u doonato kuraas siyaasadeed tii aad joogtay baa burburisay oo baabiisay Soomaaliduna waa aragtay taasay kugu eegaysa hadaa laakiin maanta tan ku guulaysato inaad saacado cadaaladda 30% hadaa soo celiso Soomaali iyada halka kuugu imanayso halka madaxa ku saaranaysa arrinta ninka dood badan baana dhex martay doodda waxay ku soo ururtay wuxuu yiri aniga waddanka markaan ini saasu ahaa waxaan ku yiri hadalkaasi hadal nin weyn oo caaqila uu ku hadlama wax khaldan hadaad u timaadid waxa laga rabaa inaad saxdid wixii khaldanaaba adigu sii toban jibaartay baan ku yiri goboladu waxaan ku yiri waa dad siman oo wax isku darsada goboladii hal isla doono haday tageen oo qaybi ay kaaftoontay hal loo barakeeyo halkooda hal lagu wanaajiyo inta hartay nidaam iyo maamul iyaga ku kooban loo sameeyo si dalkii horumar looga sameeyo cadaalad darrada jirta say u baxdo gobol walbana ama ha noqdo wax siman oo saa dadka sidii dawladdiisii aad barre nin raxan weyna ama gobolada shabeellooyinka ka yimi in halka barasaab looga dhigo say ahaan jirtay dawladdiisii aad barre marka in mudug nin ka yimi halka la keeno oo mid bari ka tagay mudug la geeyo saa dadka la isugu khaldo ama qaabkii hadda Puntland tahay oo ah gobol walba ninka ka dhashay baa wuxuu ka yahay taliye wuxuu ka yahay sarkaal wuxuu ka yahay xamaali waxa uu ka yahay waxa la yiraahdo shaqaalaha dawladda bangi haday tahay airport haday tahay mashaariic la bixinayo shirkadaha localka gobolka ka soo jeeda qaat gobolka bari waa ka duwan yahay xildhibaanadii golaha hadda waxaan la fadhiyaa xildhibaan degmada Boosaaso ah
xildhibaanadii la qaybinayaba waxaa la yidhaha loo qaybsado sidii loo qaybsaday puntland loo qaybsaday waa ogtiin tii hadda ugu dambaysa oo la dhisayey waxaa ka maqnaa dhulbahantaa ka maqnaa wasiirka arrimaha gudaha waa nin dhulbahanta ah markii la dhisay wuxuu yidhi maxaa anaga naga qadiyey annagana waa in xubinna la siiya xubin baa loogu daray waa boosaaso konsalka boosaaso soo ma garan haddii saa taa wax lagu qaybinaya waxaa mudnaa in lagu qaybiya caasimadda waxay ta u dhaxaysa magaalada u dhaxaysa gobolladoo dhan oo caasimadda waa garow waa ahayd garow way ahayd in la yidhaahdo ha lagu daro xildhibaanada degmooyinka kale gobollada xubin ha loogu daro kama dhicin laakiin boosaaso waa meel aan cidna lagu ixtiraamayn cidna aan ma garanaysaa mulkiyadeeda loo tiirinayn awood iyo maquunsi lagu hayo cabdiweli hadalladaasoo dhan waa ku wada hadallay waana wada ogtihiin raggiina intiina badanna waa wada maqasheen arrintaa waxba wax khayra kumaanan kala helin wuxuu yidhi gobolka kan wallaahi hadalladiisii waxaa ka mid ahaa aabbe la yidhaahdo bari ma jiro oday bari la yidhaahdo ma jiro bari waa meel la wada leeya anigu wuxuu yidhi waxaan ahay nin ka yimi mudug laakiin bari nin iga sheegan karaa ma jirto hantida taalla iyo shirkadaha shirkad hebel annagaale shirkad hebel annagaale keer annagaale guriga annagaale daarta annagaale yaa aniga bari iga sheegan karaa war arrintu saa maaha bari waa gobol la mida mudug la mida shirkadahana ka sheekaynayso kuwa la mid oo dadkan gobolka ka soo jeedo bari ay mudug ku leeyihiinna waa jiraan haddana ma sheegtaan gobolka qabaa'il aan u dhalan gobolkanoo hantidaa iyo mid la mida ku haysto raxan weyn ka mid yahayna waa joogaan bari mana sheegtaan laakiin waxaa laga hadlayaa in la isku ixtiraamo gobollada ma jirta buu yidhi arrintaa ninna ka yeeli maayo hadalkaas ninna ka yeeli maayo waxaa weeye bari waa la xukumay raggii xukumay baa xukumaya waxaan ku yidhi cadaalad darrada cabdiweli oo aa ka shaqaynayso oo aad mooddo dadku inaysan arag laakiin ummadda u wada muuqata waxaa ka mid ah gobolka bari 4 taliya qaybeed buu leeyahay taliyaha qaybta daraawiishta taliyaha qaybta birmadka taliyaha qaybta booliiska iyo taliyaha qaybta turbataariyada waa 4 taliya qaybood 4 taliya qaybeedba wiilala adeer u tahay baa ka wada dhigtay baan ku yidhi oo familkaagii jifadaada wada ah dadku ma waan gobolkani ma waan saraakiili ka dhalan xilalkaa qaban karta wiilashan haddii adiga ay kugu hayaan kulayl gaara iyo xushmad gaara aad u hayso way gobolkoodii u geyn weyday oo gobolkoodii taliyaal uga dhigi weyday halkan ilaa gobolkan rag baa wax u soo bartay rag baa tababar u soo qaatay rag baa u soo dhintay rag baa ilaashanaya oo waxaa weeye dable ka bilaabay inay intay sarkaal noqdaan taliya qayb gobolka ka noqdaan ama taliya daraawiish ka noqdaan wax ka noqdaan sugaya gobol kalena haddaan loo ogolayn kay ka dhashayna loo ogolayn soo dadku waxa ka dhiidhiyamayaan ka dagaalamayaan wuxuu igu jawaabay cabdiweli waa nimaanu dee aanu macrifana ahayn wada shaqaynayna aad baan u ixtiraamay wuxuu igu jawaabay wax khaldan baa iska dhaadhicseen waa xukumayaan wallaahi oo billaahi waa xukumayaan waana xukumayaan hadalku marka waa markaasuu naga taagtaagmay waxaan ku iri adiguna Obama matid halkan America ma haddaad awood damacdo inaad ku maquuniso adiga ka fadhidaad ku weynaysa iyaguna xukumi mayaan nin walba wuxuu tagayaa gobolku ka yimi gobolka ragii u dhashay baa xukumay marka halka waxaan ugu noqonaya hadalka badan iyo ku tira kuteenta iyo hadalla badan oo waxaa jira aan run ahayn oo dadka laga faafiyo waxaan rabaa wixii khaldan oo la iga faafiyay inaan iska reebo baan rabaa golo walbana aan saa uga hadlo wixii anigu aan ku khaldanahay waa la igala talinaya taladeedana waa soo dhaweynaya oo qaadanaya laakiin wixii xaq oo anigu aan sheego oo sida ay tahay oo sax ah aan u sheego waa inay taageero heli kartaa waa in cid taageerta oo tiraahdo waxaasi waa sax oo aan baqayn waa inay heli kartaa nimayow marka anigu waxaan ahay odaydii ka tirsan ragga meesha fadhiyan oo raggan ugu kalsooni badanahay haddaynan isla talin oo waxa saxan iskula talin waxa khaldanna aynan iska reebin waxaa weeye tolna ahaan mayno waxna istari mayno waa inaynu isla talin karnaa wixii saxanna isku taageeri karnaa wixii khaldanna isku taageeri karnaa waa aragtaan federaalkii wuxuu fadhiyaa garoowe wada tashi buu wadaa garoowe waa caasimadii puntland waa sax
wada tashiga garowga ka socda oo lagaga tashanayo ma 4.5 baynu qaadanaa mise oo iska daynaa oo lagaga tashanayo aqalkii sare iyo golihii sanadka oo lagaga tashanayo masiirkii Soomaaliya gobolkan aan ka soo jeedno oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala nagu uumay cid kaga ma jirto isim iyo oday dhaqameed baan kaga jirin siyaasi baan kaga jirin arrintaas waxyaabaha marka aan anigu ka hadlo markiiba lagu shaabadeeyo la yiraahdo qabiil iyo gobolaysi iyo hoog iyo baabu galan wadaa weeye laakiin anigu kama aamusi karo anigu doqon maahi waxa la yiri axan ma la saluugaa hadduu qeyrkaa kugu dagayo waa la saluugaa ha aniga waxa ii muuqda ninka aniga qabiilka igu tilmaamaya oo la galan wuxuu rabaa inuu majeerteen kala kaxeeyo wuxuu rabaa inuu Saleebaan Maxamed kala ninka aniga ay oranaya oo laakiin isaga ficil ahaan gacanta ku haya oo ku dhex jira baan aniga waxaan rabaa inuu iqanciyo garow waa la joogaa Umar Cabdirashiid iyo Cabdi Wali iyo Cabdiraxmaan Farool oo mucaarad ahaa saddexdooda maanta waxay ka talinayaan masiirkii Puntland ay Soomaaliya ku yeelan lahayd way aniga maxay ii diiday inaan ka mid noqdo inaan anigu garab fariisto 4 ku noqdo oo nin kale na soo garab fariisto 5 ku noqdo oo mid kale garab fariisto 6 ku way maxaa diiday gudiyada la sameeyo hadda ugu dambeeyay gudiga komishinka doorashooyinka Puntland baa la sameeyay 9 baa laga dhigay sida loo qaybiyo ka wada warhaysan waxa haddeer ka dambeeyay oo la sameeyay gudigii difaaca dalka iyo taakulaynta 9 xubnood baa laga dhigay sida laga dhigo ka wada warhaysan haddaan markaa anigu iska aamusnaado ya oo bahashi aan sidii marna laga leexinay waxay noqonaysaa anu waxaan aaminsanahay waxay noqonaysaa dambi iyo dulmi ah ku aamustay diinta iyo shareecada wuxuun khalfiyaad islaamiya waa lahaa waxay siinaysaa aqoonta aan leeyahay in xaq la iigu leeyahay waxa aan ogahay inaan sheego oo sax ah waxay siinaysaa in xaq la iigu leeyahay inaan cadka anigu aan leeyahay oo nin asaageeya uu rabo inuu iga leexiyo inaan ku qabsado iraado maya inaan iraado raalli iga ahaada shirku shir nabadayn buu ahaa siyaasad inaan dhex geliyo kuma talagelin laakiin waxaan halkaa u marinaya waxay tahay idinku bahadii aan la tashan lahaa baatiin bahadii qabashadayda lahayd baatiin bahadii taageeradayda lahayd baatiin waxaan rabaa anigu fikirka iyo mabda'a aan aaminsanahay waa kaa aan ka hadlayo mar rabo Puntland inay burburto mar rabo iska dhaaf gabadh yar oo foodleeya sabab anigu aan la inay xariiqi gaarto mar rabo xaasha lillah waxaan rabaa wanaagay nimcadaynu haysano inagoo haysana haddana inaynu xisaabtano wada hadallo si aynu wax ka badan u wada doonan karro u wada duuri karro laakiin haddii la yiraahdo maba hadli kartid haddaa hadashana tii la igu sameeyo kala lagu sameynaya ya guriga anigu aan deganaa 4 wiil oo staff aan lahaa oo sharci ahaan Cabdi Wali warqad dikreetaa ku soo saaray 6 buu staafkayga iga reebay wixii 6daas gudoomiye hore gobolka Bari baa iskale isaga ilaalinayaan mushaarkoodii gunadooda dawladda bixinaysa 6dii nin baa iga maqnaa 5 baa ila joogay gurigaygan iska deganaa nabad baan ku fadhiyay 20 gaaro teknika ah iyo 200 oo beeka am wadato baan galabkii waxa weeye halka nagu soo ekaaday wax kale oo dambi oo aan galay ma jirto inta aan ka hadlayaan ka hadlay Cabdi Walina hortiisaan ka iri idaacad maaha meel kale hortiisaan ka iri marka niman yahow wadanku dulmi nabad ku ahaan kari maayo ma dhacayso waxaad markhaati ka wadatiin oo aad ogtiin 25 milyan oo euro baa Jarmal ku bixiyay hadalkiisii Cabdi Wali meel walba waa xasuutaan muxuu oran jiray wuxuu yiri lacagta waxaan ka dhigeynaa wado iyo biyo iyo wado baan ka dhigeynaa 25 milyan waa sax biyo iyo wada laga dhigay laakiin xagee laga dhigay waxa la yiri gaal kacyo ka bilaaba qardho ku ekeeya wadada qardho iyo boosaaso dhexdeeda iyo qardho iyo garowe dhexdeeda keebaa liita waa wada martaan waxa liita boosaasi iyo qardho waxa go'i raba oo daxlay oo daxalku banaanka ka muuqda bundooyinkii mana samaysan karno hal bundo ama laag ama kuwa dhaxaday go'aan kulli birti baa intay wada shubkii ka dhacay baa daxalkii wallahi wada muuqda waxa la yiri waxa halka intaasay ka shaqeynaysaa 25 milyan oo
anigu dhulka bariga inta aan hadeer maray dhulka aan maray wallahi inaadan is oran karin dawlad baa wadanka ka jirta maaha inaadan is oran karin maamul xaafadeed baa xitaa ka jira cidi isma weydiinayso cidi kama hadlayso hadaa idinku hadeer tagtaan oo aad dabacdaa inaa ka hadashaan waxa la idin oranayo qabiil baa ku socotaan iyo gobolaysi iyo edab darre iyo qurma xabsi baa laga yaabaa in la idin ku guro waxaan markhaati ka ahay xasan baa noogu yimi Boosaaso waa madaxweynaha federaalka Soomaaliya Boosaaso hadduu noogu yimi laba nin baa kulan gaara la galay oo loo geeyay oo aan dawladda ahayn ma garan kartaa nin wuxuu ahaa ninka la yiraahdo Burhaan shir gaara buu la galay waxay ka wada hadleen Soomaaliya waxay ka wada hadleen Puntland waxay ka wada hadleen horumarka adduunka taariikh baa laga wada hadlay waxba laga wada hadlay ninka labaadna wuxuu ahaa ninka la yiraahdo amiirka oo wuxuu gudoomiye u yahay guddiga horumarinta mudug ha waa nin dhaqana ninkaana shir gaara madaxweynihii Soomaaliya uu la galay oo wuxuu waliba ay ku heshiiyeen gobolka mudug guddiga ka jira oo la yiraahdo guddiga horumarinta gobolka mudug inuu madaxweynaha Soomaaliya hay'adahana ku xiro dhaqaalaha ku taageero see u rabtaan inaan anigu qanco oo aan ku aamuso aniga oday dhaqameedkaygii idinka ah isimadaydi waa kuwa markay airportka galayaan halka lagu dhufanayay qaar waa kuwa mobilada lala dhacayay oo wiilasha yar lahaa jiida oo banaanka u saara qaar xamar bay fadhiyaan inta kalena waa carari doontaa anu marka waxaan rabaa in ma ahi anigu adoon la leeyahay ma ahi wiilkaygu wiilkaaga kama fiicnaan karo anigu Cabdiweli kama aqbali karo inuu yiraahdo aniga ku talinaya adiga markaan anigu meesha ka tagana wiilkaaga u talinaya ma aqbali karo never suuragal ma inuu yiraahdo isimkaaga u talinaya oo sarkaalkaaga u talinaya ma suuragal maaha anagu ma nihin dad oroma ah nimana kan oromada ah oo la rartay oo aad ogtiin Itoobiya inay ugu badan yihiin ma waxay idin la tahay in la iska rartay la iskama raran waa hore la baqsaday iyagoo taariikh hore maanta iyagoo Itoobiya 4 meelood 3 meel ka ah ba waxa iska baacsanaya wiil yar oo ama Tigray ah ama Xaari ba baacsanaya waxba ma samayn karaan oo idinka arkay halkaas ku dhamaadeen wadadaas ku dhamaadeen taariikhda inuu hadda ku socono waa taas oo kale moogtahay hadaadan maskaxda Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ku siiyay inaad ku xisaabtanto oo wax isku weydiiso anigu inaan is weydiin karo qabiilka igada waxa kale igada way gobolkan wiilka ka dhashay uu u noqon waayay wiilka gobolada kale ka yimi wuxuu noqday u noqon kari waayay loogu ogolaan waayay oo ninka isimka gobolkan ka dhashay ninka isimka gobolada kale ka dhashay u noqon waayay oo ninka sarkaalka gobolka ka dhashay gobolada kale saraakiishooda la mid noqon waayay oo ninka siyaasiga gobolka ka dhashay kuwa kale la mid noqon hadii marka inta la dadka maatada masaakiinta dhulkii aanu tagnay oo dadka la hadleynay qayb baan ba ogeyn wadanka ba cid ka talisa iyo systemka ma ba oga qayb baan ogeyn waxay leeyihiin wadanku ma garanaysaa xaaladda uu ku jiro lama socda intii wax ogeyn marka waa inta tan iyo in la mid ah hadaa ku aamustaan oo aad ka gilgilan weydaan oo aad waxa khaldan diidi weydaan hada waxa iimaanaysa idinku waa dhimaanaysaan jiilka idinku xiga waxay arki jireen wiilashiinu abayaashooda madaxa ruuxa oo sidii hindidii wax walba oo khaldan madaxa ruuxaya iyana madaxa iyo futadaba waa ruuxaya ka harimayaan kuwa iyaga ka dambeeyo awowayaasha u ahna kuwa la raran doonay noqonaya ilaah baan idinku dhaarshay warshada lacagta samaysa oo money laundering Cabdiweli yuu kala tashaday xildhibaanka waa halkaas fadhiya nin baa jeebkiisa 100,000 ka soo saaray oo xildhibaan oo yir madaxweyne baasha aad daabacatay maba ogi buu yiraanu meel yaani been qofku uu sheegi karaa laakiin beentaano kale maaha been caadiya aniga hadeer inaan ku iraahdo ninka magaciisa ma aqaan ayaan ma ninkaas sheegay سعيدنا كوحيجا يحيى ونكا هذا أنا جاي هرفر إن عن إراهضه يحيى ما هرفر ديو ما هبينا شيء جاي وكيلر يسلويني يجلس كوكو جلس أي عبدوري إنه برنامج كورتي سكير إراهضه وحنا وما بمقل العقمي على دابعة العقب بتاعه ورواتنا العقتي على دابعة بوساسي تالا هذا أمري وها ما مقل أنا تذكر كلويدية وجلس اهتزاوي
laba wiil cabdifataax maxamed sugulle iyo bashiir cabdulaahi cali gaas labadaa wiil buu u dhiibtay wuxuu yidhi furaha ii haya warshada ii haya warqadaha dubay baa looga keenaa habeenkiiba marba $100,000 lagu daabacdaa wadankii waa wada joognaa waa aragnaa lacagta $100,000 oo la daabacayo aniga jeebkayga iyo jeebkaaga lacag baa ka raacaysa marka suuqa sarifka uu shalay ahaa 2,200,000 oo lacagta inflationka ay keentay 2,500,000 uu tagay macnaheedu waxa weeye $100 oo aan sarriftay 300,000 buu iga xaday Cabdiweli $100 300,000 buu qaatay oo toosiga qaatay kama hadli karo xildhibaanadii baa ka hadli kari waayay kuwii markii meesha laga baxayna qayb baa la handaday oo waxa la yiri wallaahi billaahi hadayda waxa ku jirto kitaab jaamic aniga ii maray ninkii jeebka ka soo saaray lacagta wuxuu igu yiri toos baa waxa la ii soo wacay al-shabaab waa wallaahi waxay yiraahdeen hadaada waxa ku jirto iyo dabagalka aad nagu hayso daadan ka harin oo u dhimanaysa waa al-shabaab wuxuu noqday prepaid wax lagu shubto al-shabaabku ma aha jin ma aha waa shakhsiyaad la yaqaano ninka marka al-shabaabku madaxdu anigu aan aqaan waxaan oranayaa hore dhageyso $10,000 baan halka kuugu tuurayaa ninka la hadal ama dilba uu la hadlaya leeyo waxa ku jirto daada ka bixi waa dhimanaysa ama madaxu ku dhufanaya ninkii marka ka hadla waa inuu cararaa saaf ma wato xama wato dibda ma hadli karo maxaa sameynaysa waxa ma sameyn karo nimayo marka cadaalad darrada iyo dulmiga aan daawanayno eegayno iyo biyaha hoostada iyo maraya waxa kan quruxda badanayno eeganayno guriga kan tiirar buu ku taagan yahay haday tiirarku ku taagan yahay dawladnimadu tiirarkay ku taagan tahay waa maxay waa cadaaladda Soomaa tiirarka gurigan ku taagan yahay hadaa arkayno inay jabeen oo dilaaceen hadaynu iska hoos fadhino maxaynu sugeynaa in nagu soo dumo Puntland tiirarkeedii waa jabeen cadaalad darradaana burburisay waxaynu sugeynaa Puntland inay nagu dunto oo Puntland la waayo oo inagana layna waayo oo dhaqankii iyo taariikhdii iyo Soomaalidii kale inuu ka hormarnay inaynu hadeer dib tusaale waxa idinku filan anigu waxaan ogaa Puntland oo budgetkeeda iyo miisaaniyadeedu uu ka horeeyo Soomaaliland maanta ina Puntland budgetkeedu ani 2016 ka lama socdo 15kii waxa lagu yiri 16kii 15kii isku mid bay ahaayeen wuxuu ahaa $45 milyan Puntland Somaliland $210 milyan buu intee u dhaxeeya 5 jeer buu ya hadeer okay 96 milyan taa anigu 2015kii baa 210 milyan buu ahaa waa naga deegaan yar yihiin waa naga population yar yihiin inaga ka fiican oo Soomaalida kale iyo xog gudbina xogaaga Itoobiya iyaga uga gudba maahay yani waxa dareemaysaa horumar baa ka jira warshada la dhisay warshadii sibirka la wada tii Coca-Cola la dhisay kuwa kala la dhisay wuxuun horumar jira oo dawladdu qayb ka tahay inaga horumar lama sameyn waxaan soo arkay oo aan soo indhahayga soo saaray wadamada Afrikaanka kamid ah oo wuxuu danaynayaa wuxuu qaataa kalluunka oo kale wuxuu qaadan karaa wadanka isaga diyaar u ah inuu yimaado oo diyaaradihiisa keensado oo boosaaso uu ka rarto wuxuu qaadan karaa kalluun sanadkii ka badan $300 milyan buu qaadan karaa isaga wuxuu dhisanayaa qaboojiyayaashiisii ka dhisanaya meelaha ku haboon isaga freezeradii airportka ka samaysanaya diyaaradihiina isaga keensanay kaliya wuxuu u baahan yahay dawlad la heshiisay cid la heshiisa kulli waa aragteen jarif iyo qurun baa lagu dhameystay Iran baa imaanaysa waxay raranaysaa 100,000 oo tan 100 tan bay raranaysaa 100 tan buu intuu qaato buu wuxuu bixinayaa $4,500 100 tan oo kalluuna waa 100,000 oo kiiladii maanta waxay maraysaa $12 wuxuu raranayaa $500,000 alaab ah $4,500 buu dawladda siinaya waa lagu qanacsan yahay Cabdiweli Cali Taar baa aniga isoo wacay hadeer intaan fadhiyay banaanka fadhiyay wuxuu yiri galano wadanka inaga burburin barwaaqa haysanaa nimcaynu haysanaa horumar yaa layna la yaabin cadow baynu leenahay waxaan ku yiri waa runta 30% baa waxa la yiri waxa badda ku jira 30% ina Cali Taar akoon ha loogu rido Puntland ina ilaashato oo waxa jira ilaashato adigoo ku qasbanta 30% waa shakhsi Cabdiweli Cali Taar 30% lacagta kalluunka ka soo xaroota ama cashuura ku bacdo ama laysan ku bacdo 30% isaga qaata hadalku igu yiri ma taqaanaan
والله إنه صح كله ويقول قالنا وارثة لكنيه هو إن دوالي بقول كي بصدق كي أوجد عبد الولي بقى يقول هيستوي ساعة كلا بحكمك waxaan ku yiri laba nin oo ilmaadeeratiin idinka isku haysta ajoolo ay qaateen anaga wadanka kan waxaan ku yiri isim wax ma haysto oo kii ganacsadaha wax ma haysto oo kii siyaasiga wax ma haysto oo kii dhibaataysnaayo la rabay in la kaabo wax ma haysto muxuu marka qofku ilaashanay xaw ma haystee qof waxay saaxila idinka ilaashanaya oo meesha dadkii ka guranay waa ogeydeen airport-ka la sameeyay parking-kii baabuurta la dhiganayay baa waxa la yiri gaari walba $2 ilaa $5 ka qaad nin baa shaqo looga dhigay loo abuuray nin baa soo wacay boosaaso jooga oo labadiina beelood mid kamid ka dhashay wuxuu yiri galano fowdada ma naga daysid mashaariicda tan airport waxa kan dadka miyaa weydiisay anaga waxbaan ku leenahay wuxuu yiri aniga iyo hebel laba nin buu ishay aniga iyo hebel waxa sheerna laga siiyay ninka parking-ka airport-ka la siiyay baa sheerna siiyay buu yiri waa nin weyn oo wallahi nabadoon oo dhaqan oo nin saraa ما قال أنا شارك حوان كله نايبير نيكي اللي سيء بقى أنا قال هوس وحنا جسيه لا ها مركا نبيه هو مركا وحاول أكتين إن إذا كل عليه كومات لكن وقت كان إذا كقعد لكن وحن كلي وعاد فضي سنة وهذا لا يحيط هاي أنا وين خلنا هاي وضع كرت لكن أنا وحقيقي موقتها وحن وداعنا أسمعنا عبد الولي إجماع حنية بدنا إجماع رجعني ما بدنا إجماع أقوام بدنا هدو برتي علمي economiga ah oo uu macallin ku ahaa Puntland maalintii loo dhiibay dhaqaalaha bay la dhutinaysay meeshii maanta sii mareynana waa arkaynaa maqaalan Cabdiweli ka qor waxaan ku yiri jaamacadii uu Cabdiweli macallinka ka ahaa waa in la weydiiyo Cabdiweli ma wuxuu bari jiray sida loo horumariyo economic development miyuu dhigi jiray mise wuxuu dhigi jiray sida dhaqaalaha loo lunsado waa runtay wax maanta dhaqaalaha Puntland yaala ma jiraan هل income generation وبتران لا أبوري متجر بدأ كليه إنه كل جن كدر جلهن قف والبشقة كهل لها سو ما إذا فاهم قف والبفرد يسوق كدر جلها وحين كهل لهن حولها أو ورشة الله صنعيه هرجها أو ورشة الله صنعيه عيدا كان لهين كر لا أي هاي بشقة الله صنعين كلا أنا وحين ده هيجا سعري سوريا أو كله إيه السودان لفتي جوده وحي سمين عيدا ماذا ملتري جو الدولة ده وحلو سمي ورشة يجو إليه warshadaha iyaga iskale waxbay soo saaraan wuxuu gashan yahay surwaal jilicsan oo tuuta ah iyo funaanad jilicsan oo tuuta ah qaybtood wallahi foornada khubska lagu dubo militariga iskale saamka shaqada sida militariga u waardiyaha u kala galaba u galaya gawaarida militariga daadinayso meesha keenaysa foornadii buu galaya khubstii buu dubaya mushaharkiisa waa qaataa lacagta ay halka ka soo saaraan nusna dawladda u xaroonaysa nusna wasaaradda gaashaandhigga iyo ragga shaqaynaya baa yeelan iyaga wax soo saaray inaga askarigeena waxa ma soo saar shil ma soo saar meelaha iska hoganaya waxa ma qabtaan wax ma soo saaraan wixii la siin lahaa waa la lunsaday inta waa cabanayaan hadii shaqo loo abuuro oo hadda kuwa mariinska la yiri warshad kalluumaysi loo sameeyo oo doonyo jilaab wax soo jilaabi kara loo sameeyo oo kalluunka iyo waxa ay keenaan percentage-na iyagu qaadanayaan percentage dawladda ku darayaan waxa way meehanay anyhow waxa ii muuqda nimayahow wax badan oo la qaban karo oo aan la qabanayno hagrasho waxyaabaa la igu eedeeyay waxa kamid ah inaan anigu xamar soo maray $2 milyan na soo qaatay rag badan baa soo wacay oo weydiiyay waxay yiraahdeen waxay doontaba ha ahaatee lacagta wax naga si $2 milyan waa lacag badan waana la kala qaadan karaa laakiin in aniga la igu eedeeyo Cabdiweli Xamar baan isugu nimid shirarkii 2016 ka looga hadlayay masiirka Soomaaliya dadkii ka qayb galaya dad xadidan baa aanu xamar baan joogay dadka ka qayb galaya dad kooban hebel iyo hebel iyo hebel oran karo waxa in laga tashado la yiraahdo war 4.5 madan baa noogu jirta mise nooguma jirta shirar gaar oo marmarka qaar kood laga gali jira aanu shirarkaasaan ka qayb galay Cabdiweli waa isku aragnay madaxweynaha Soomaaliya anigu waa la kulmay حقنا وأقول له أنا الله كلمه ومدحونا الصومالي رجارها والله كلمه وسيرها والله كلمه دم بمجلين خلدنا مصنعين أنا الله كلمه لكن إن لا يقول عن باري يصور هذا إذا مالها أنت لقى سوقاته أنا مدحونا الله فدي أمر رجارة عدك الله فدي إن لفافيو له موجودان قندراس بسوقاته شيء بحكوا سوقاته بتنا إنه بربريو وأرين يعني أن كإيمان كريم قف سياسية أما قف ضمير له
ama qof wax qiimayn kara uusan oran karin iska oran karin cabdiweli isagoo aan xil hayn buu la shiri jiray isagoo xil hayuu la shiraa isagoo xaggaa joogo xaggaasuba nagaga yimi buu la shiraa kuwa hadda halka jooga u taga oo la shira cidna ma haysato cidma dhaleecayso cidma diid laakiin waxaa la diidnaya nin gobolkaa ka soo jeeda tallaabo saddex inuu sameeyo lama ogola because wax badan oo xarge badan oo xagga xirxiran oo aanan ogeyn baan hadda soo ogaaday oo qaybtood furayaashoodii laga yaabo inaanu helay waxaasaa laga ilaalinaya lama ogola wadanka kan wadan wuxuu iska noqday meel ku xiran oo ragdabada marsadeen oo marka la damco in la fiiriyo leeyahay waa ka horta annaga nala hadla intaadan xagga fiirin nimayow marka horta waxaan idinku bishaaraynayaa gobolkan Soomaaliya marka la joogo hadday tahay beesha caalamka iyo hadday tahay Soomaali weyn Soomaaliya meesha la qiimeynayo oo ugu miisaanka badan waa gobolka waxaan soo aragnay wadamo iyo kambaniyo danaynaya cornerka aynu leenahay maxaa la yiraahdaa keliya waxay yiraahdeen isaga keliya baan waxaanu dhigaynaa maaha deked xitaa maaha waxay samaynayaan deked macmil ah waxay geynayaan shidaalkii waxay geynayaan sahaydii maraakiibta halkaa marta waxay sahayda iyo shidaalka ka doontaan ama markay u baahdaan in la saaro dry dogi la saari jiray doonyaha in la saaro waxay u doontaan salaala waxay khasaaraan waqti iyo dhaqaale fara badan oo shidaal ay ku gubaan haddii halkaa laga sameeyo sanadkii budgetka ay ku qiimeeyeen inuu ka imaan karo sanadkii waa lacag $1 bilyan oo dollar kor u dhaafaysa Soomaaliya oo dhan baa lagu fangarayn karaa aaw cidii samayn lahayd cidii ka hadlayd aaw cidii doon lama yaqaan lama ogola in la tago lama ogola in magaciisa la keeno lama ogola in qiimeyn lagu sameeyo in dad la geeyo in la soo bandhigo lama ogola cid uma qaabayso aan waxaan aaminsanahay kaligeed baa waxa loo magacaabi lahaa wasiir ama cid aan shaqo kale lahayn halka kaliya suuq geyso iibisa maalinta ay hirgashana Soomaaliya oo dhan naga martay nool noqonay ilmaada reyaalo raali ahaada waxaan ku soo gunaanadayaa hadalka uga baxaya Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu quraankiisa ku yiri ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته